السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعلمو قميصة تاريخ دون ويكون بيغان تهي سدح دبشة تضبات سنة كالله وضو كنشاني لباتنك عشر كينا مانتا وكن نقون دونا ميد قسية جرامر كقاسة إليدا هالكان إذن كغام بوقضا عوانك بسيطو يهي الارتيكولو بشان عشرة دان قادن دونا دولا إلى هذا وحن نقون دونان وأنا اللي دونو جرامر سنة سعودين بالارتيكولو هذه رجعت عن معنى إنه عوانك مش نصارن معنى بدنو يلنا يا سومالي قضب ونقون كرا وعقلوا نقون كرا موضوع نقون كرا وعقلوا نقون كرا marka laga hadlayo qoraalka marka laga hadlayo kale dadka wariyaasha maqaal oo noqon kara laakiin hadda wuxuu ugu jiraa Soomaali ahaan waxa uu qaadanaynaa marka laga hadlayo magaca marka aan rabno shayga aan ka hadleyno in uu yahay mid la isla yaqaano waxa ka hormaraya marka sida loo gilsho marka Soomaaliga aan saari lahaa dabcan inuu qaldamo waa laga yaabaa horgal oo macnaheedu waxay tahay magaciisu ka hormaraya waa isla arki doonaa marka waxay tahay singulare plurale macnaheedu marka waxa waaye mufrad iyo jamac ama waxay tahay keli iyo wadar Soomaaliga sax oo noqonaya marka il singulare wuxuu noqonayaa il jamaceedu waxay noqon doontaa markii magaca la raacsho arki doonaa iyadoo marka jumlad ku jirta lo jamaceedu waxay noqon doontaa yi la apostrophe ama haka dusha laga saaray ayada markii la jamcinayo magac markaasi wadara loo isticmaalayo wuxuu noqonayaa yigi waa marka maskile qaybta waa qaybta marka aan leeyahay maskile marka waxay noqonaysaa labka qaybta hoose aad aragteen ayaduna waxay tahay saad arkaysaanba la jamaceedu waxay noqon doontaa le la oo markaasi apostrophe kor laga saaray ama haka kor laga saarayna waxay noqon doontaa le ayaa noqon doontaa qaybtaana waxay tahay feminine dadigay noqonaysaa qaybta dadiga marka insha Allah qaybta yaroo kooban maanta waxaan kaga hadalnay horgalayaashan iyo sida ay isku raaci doonaan casharkeen xigaan kaga hadli doonaa inta aan ku kulmi doonaa casharka mid lamid ah waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh